waxaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer lagu qabtay shirweynihii koobaad ee qurba joogta gobolka Togdheer waxaana shirweynahaasi soo gaasintay dowladda hoose ee degmada Burco. Shirweynahani koobaad ee qurba joogta u dhalatay gobolka Togdheer ayaa waxaa lagaga arrinsanayay horumarinta guud ahaaneed ee gobolka Togdheer waxaana ka soo qayb galay xildhibaan Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland nagala soo doortay gobolka Togdheer maamulka gobolka Togdheer kuwan degmada Burco qurba joogta gobolka Togdheer xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco iyo xubno kale aad u tiro badan. Munaasabadaas ayaa waxa gorantiba ka hadlay maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad waxaana uga mahadceliyay qurba joogta u dhalatay gobolka Togdheer sida ay uga qayb qaataan horumarinta gobolka isagoona ka codsadeen wixii talo iyo tusaaleyn ay soo gaarsiiyeen dowladda hoose ee degmada Burco. way ka badan tahay inaan idin soo dhaweyno waan ku qasbanayn inaan idin soo dhaweyno way ka badan tahay ujeedadeedu inaan wax idin la qabano laakiin tan maanta isugu nim way ka weyn tahay inaan idinku wax idin la qabano annaga laftigayga waxaan idin ka baahannahay maanta adduun idin weydiin mayno wadaadada tabliiqiinta waxay dhahaan markay dadka wacdeeyaan wax adduun oo leedinka doonayaa ma jiro annaguna maanta adduun aan idin weydiinaynaa ma jiro laakiin waxa ugu badan aan idin weydiinaynaa waxa weeye ama waxa ugu noogu muhiimsan annaga ee aan idin weydiinaynaa waxa weeye inaad nala talisaan halkee wax ka xun halkee wax ka khaldan muhiim maaha marka intaad kacayna tiraado halkan daar ka dhisa ama halkan daar ka jabiya laakiin in niyada ay kugu jirto inaan u baahannahay taladaada u baahannahay inaan u baahannahay maskaxaada caqligaaga u baahannahay maayirka xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac iyo Sidwaha wasaaradda ganacsiga ee gobolka Togdheer oo munaasabadaas hadallo kooban ka soo jeeday ayaa waxay yiraahdeen qurba joogga reer Soomaaliland gaar ahaan kuwa reer Togdheer dalkan qiimo weyn iyo taariikh weyn bay ku leeyihiin ilaa iyo xoreyntii dalka marka laga soo bilaabo dalkan marka laga hadlayo araxdiisa ama gogoldhigiisa waxaan oran karnaa in qurba joogga reer Soomaaliland gaar ahaan marka gobolka Togdheer laga hadlayo inay u yihiin udub dhaxaad dalkan horumarkiisa marka laga hadlayo inay udub dhaxaad u yihiin marka laga hadlayo dib u heshiisiintiisii iyo wixii la soo maray inay udub dhaxaad u yihiin waxaan leenahay waxay leeyihiin mahada aan la soo koobi karin qurba jooggu waxa weeyaan waa qurba joogii gobolkan ka tagay waxaanay leeyihiin muhiimadooda ayay leeyihiin aad iyo aad ayaan ugu soo dhaweynaynaa haddii aanu nahay wasaaradda ganacsiga wasaaradda ganacsigu waxay idiin ballan qaadaysaa anigoo ku hadlaya afka mas-uuliyiinta wasaaradda gobolka afka mas-uuliyiinta heer qaran ee wasaaradda ganacsiga waxaan idiin sheegayaa in la diyaariyey xeerkii maalgashiga oo uu maanta diyaar yahay xubno ka mid ah qurba joogta u dhalatay gobolka Togdheer iyo xildhibaan Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan oo iyagoo shirweynahaasi ka hadlay ayaa ammaan ballaaran u soo jeediyay golaha deegaanka ee degmada Burco iyo waxqabadka ay ka wadaan gudaha magaalada Burco iyagoona ku booriyeen in halkaasi ka sii wadaan waxaana sidoo kale ka hadleen maalgashiga qurba joogta Soomaaliland ay ku sameeyeen gudaha gobolka Togdheer waxaana hadaladoodii ka mid ahaa dhaqaalaha dalka qayb weyn bay ka yihiin haddaa dhoofteen oo dabadu dhoofteen oo haajirteen oo taabirteen waxaan aad idinka mahad celinaynaa haddana inaad dalka wixii idin soo galay iyo wixii awoodi karayseen baa dib ugu soo celiseen munaasabadaas ayaa waxa soo afmeeray isla markaasna halkaasi ka akhriyay qodobadii ka soo baxay shirweynaha koobaad ee qurba joogta gobolka Togdheer xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ahaana qabanqaabiyaashii qaybta lixaad ka qaatay qabsamida shirweynahani koobaad ee qurba joogta u dhalatay gobolka Togdheer ee lagaga arinsanayo horumarinta gobolka Togdheer waana kan xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi oo qodobadaasi akhriyaya qodobka koobaad waxaynu isla qaadanay oo in la qabto inuu muhiim yahay ama in la qabto shirweynaha qurba joogga gobolka Togdheer si joogta loo qabto sanad kasta qodobkaasi wuxuu noqday mid muhiima sanadka daba ilaa ka dhigo 27 July 2015 haddii ilaahay ka dhigo in ay shirka dambe isugu nimaadno qodob waa ka labaad waxay isla qaadanay haddana golaha deegaanka oo arkayseen inuu maayirka iyo ku-xigeenkii isla qaadanay iyo xildhibaan cabsaad qaalo isla halka fadhiya oo xildhibaanka loogu daayada in dowladda hoose ay soo dhaweynayso qurba joogga gobolka Togdheer
iyo guud ahaanba qurbajoogga reer somalilan ee raba inay halkan degaan gobolka togdheer isla markaana raba inay maal gashadaan. qodobka saddexaad waxaa in badan laga hadlay oo la isweydiiyey oo aad warbaahintada ku arkayseen xubno badanna ayna weydiiyeen in madaarkii magaalada burco uu xidhan yahay qurbajoog fara badanna ay ka soo degaan oo ay Hargeysa qaarkoodna waqtigoodii fasaxa oo kaga dhamaaday Hargeysa. waxaan la isla gartay qurbajoogii iyo annaga in uu muhiim yahay madaarka burco oo caasimadii labaada. waxaan qodob isagana ka dhignay ka saddexaad oo ka codsaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamuud siiraayo iyo wasiirkiisa duulista iyo hawada maxamed xaashi cabdi in loo furo madaarka burco haddii la ka dhigo. qodobka afraad maadaama uu joogo halkan, maadaama aynu ognahay in somalilan dhul somalilan dhulka intiisii badnayd uu jiro bari naga jiro wadadii ceergaabo iyo togdheer oo ay muhiim tahay in la dhiso. waxaan qodobka afraad u qaadanay oo orbaaq u jeedinaa qurbajoogga togdheer iyo somalilanba in laga dheer qaato wadada isku xidhi doonta togdheer iyo ceergaabo. afartaa qodob baan kusoo gabagabaynay wabilaahi tawfiiq. وخالد بكيلي شبكة عالمية اعتراف نيوز برعو.